Xulbadu waa geed daaweed faa'iido badan u leh bini'aadamka. Xulbadu waxaa ka buuxa borotiin iyo maadada loo yaqaan fosfoor, waxayna faa'iido nafaqo u dhigtaa beerka nimiriga maadaama uu boqolkii garaamba ku jiro 4,400 oo milligaraam oo borotiin ah. Boqolkii garan oo xulba ah waxaa ku jira nafaqo ahaan 6,000 oo milligaraam oo karbohaydrayt ah, 4,400 milligaraam oo borotiin ah, 900 oo milligaraam oo dufan ah, 395 milligaraam oo calcium ah, 51 milligaraam oo fosfoor ah, 1.93 oo bir ah, energy u dhigma 49 kilocalories ah. Xulbada markii la kariyo waxay faa'iido u leedahay nafaqeynta inay wax cayliso. Markii la karkariyo waxaa loo cabi karaa calool xanuunka iyo feer xanuunka. Waxaa kaloo faa'iido fiican u leedahay gabdhaha caatada xilliga qaangaarka maadaama ay sare u qaaddo hormoneska jirkooda waxayna furtaa appetite-ka. Markii la rabo inay cunada furto, 30 garan oo xulba ah ayaa waxaa lagu daraa 1 litir oo biyo karkarsan ah, waxaana la cabaa cunada nus saac ka hor si ay ku caawiso waxayna caawisaa xagga cunto shiidida. Haddii saliid laga dhigo faa'iidada waxaa ka mid ah hooyada naaska nuujisa inay caano badan u keento, haweenka caadada xanuunsan inay ka khafiifiso si sahlan uga timaado. Waxaa kaloo lagu daaweeyaa nabraha ka soo baxa dadka sokorta qabo. Waxaa kaloo lagu daaweeyaa calool adeega iyo baabsiirka. Haddii lagu luqluqdana waxay daaweysaa quumanka. Haddii la isku horeynayo waxay yareysaa qof asaidka. Fiiro gaar ah, haddii aad leedahay uur ha qaadanin xulbada waxay saameyn kartaa korriin maskaxeed ee uurku jirta. Sokortana way ridi kartaa, minkana way maroojin kartaa, fooshana waa ay soo dedejisaa.